السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالقة kusoo dhawaada lagjaradayna taxanaha maadada low vision haduu ilaahay raado maanta waxaan ka hadli doonaa objectives and assessment loo sameeyo ujeedka ka leenahay low vision waxa uu baranayna waxa ujeedo ka leenahay ayaa maanta baran doona sidoo kale assessment uu sameeyo sidee assessment loo sameeyo karaa sida qofka bukaanka low vision assessment ahaan ugu sameeyo assessment waxa ay tahay sida assessment low vision ku yahay waa ka arki doona iyo objectives muhiim waa marka laga hadlayo objectives marka laga hadlayo low vision objectives intaana ugu weyn intaan xaalada ugu weyn waxyaabaha la rabo inaad samaysid waxa waaye maximize inaad ku samaysid residual vision aragga inta soo haray inaad maximize ku samaysid inaad improve taro uu sii samayn kartid sidoo kale improve inaad ku samayn kartid reading speed waxyaabo qof markuu wax aqrinayo inaa uu improve kari karto because problemada inta badan la jirka ugu dambeeya kaga hadlayn wuxuu ahaa qofka inuusan awood u lahayn inuu wax aqriyo inuusan slowly inuu wax u aqrinayo problemada qofka inta badan kala hadlayo tusaale waxyaabihii saacadii hadii noqon lahayd hadii ay noqon lahayd warqadihii lacagihii la isticmaalay qofka inuusan si fiican u arkin marka waxyaabaha inta badan oo improvement laga rabo inaad ku samaysid sidoo kale mobility safety-giisa qofka safety ahaan hadii qofka oo problem iyo wax uu ka kulmeynin ina improvement ku sameyn kartid oo inta badan xaaladda mobility-ga inta badan lagjarada hore kaga soo hadalnay low vision marka la joogo sidoo kale reduce ina ku sameyn kartid galeerka ina reduce ku sameyn kartid glare sensitivity-ga qofka problemadiisa inta badan oo qofka ku soo laabto ku jira ina yareyn kartid sidoo kale enhance ina ku sameyn kartid ina qofka asiga reduce ku sameyn kartid contrast sensitivity laydiyadaas oo qofka inta badan uu arkay ina ka yareey kartid waxyaabo inta badan main objectives oo loo baahan yahay sidoo kale provide ina si kartid psychological support psychological support oo qofka u siinaysa because waxa uu siinaysa lecture hordo kaga soo hadalay problem qofka wuxuu dareemaa independent inuu soo qofka awood u san lahayn inuu qofka wuxuu kala dareemaa oo objectives marka laga soo tago waxyaabo kale qofka dareemaa waxa kamid ah inuu qofka loss of ability inuu yahay oo qofka awood u san lahayn wixdan uu qabsan karin soo marka support ina u sameeyo psychological ina niyad u dhisi kartid xaaladan inta soo dad qof inay jiraan waxyaabahaas dhan laga raba sidoo kale promote ina ku sameeyo kartid independent-ga ina horumari kartid waxyaaba independent-giisa waxyaaba oo independent-gu waxa hadda oo independent oo la noqday ina qofka ka caawin kartid waxyaaba main objectives-ka oo loo baahan yahay assessment maxaa u sameeynaa marka assessment marka laga hadlayo low vision assessment-ga aad u badan yahay waxyaabo ugu badan waxa kamid ah clinical test ina u sameeyay mid ugu horeysa marka waxa u sameynaysaa clinical marka la joogo waxa u sameynaysaa best correction visual acuity-kiisa sida tusaale qofka haduu cabir uu salayn tusaale haduu qofka cabirkiisa ugu dambeeyo haduu leeyahay tusaale haduu baarisiga xataa uu wato cabir baarisiga xataa haduu qofka araggiisa uu ku noqonayo inta badan low vision waa la siiyaa haduu qofka balaasteen uu ku noqonayo balaastigiisa la siiyaa waa loo siiyaa because low arag intaas ka dambeeyo uu soo laabanayo ma jiro soo marka intaas qofku uu arkay in arag best correction ahaan loogu dhigo in araggiisa meesha ugu dambeeyso la gaarsiin karo in la gaarsiiyo xataa hadii qofka uu 1 mitir uu arkay hadii 5 mitir wax ku arkay 5 mitir idoo qofka wax badan uu soo arkay laakiin 5 mitir qofka la siina oo kiyaala 5 mitir wax ku arkay la siina asoo qofka 1 mitir wax ku arkay marka aragga best correction-kiisa loo sameeyo sidoo kale near acute with log bar ina qofka loo siiyo way log bar oo near acute-kiisa qofka loogu siiyo near acute marka laga hadlayo nearka waxyaabaha uu kaga hadlayo log bar-ka wuxuu isla jaart kaga gudisay isla jaart distance uu fiican distance-ga inta badan waxyaabaha aragyada kuwad xarfaha kuwad waa weyn xarfi yaraad way si yaraanayaan laakiin low barka waa xarfa isla eg way oo hal tir ka kooban oo shan lambar ah marka low barka laga hadla xataa la jira kaga soo hadal soo marka low barkaas uu isticmaalaysa sidoo kale contrast sensitivity adoo isticmaalay Bell-Robson this testiga aad ayuu muhiim u yahay clinical testiga loo baahan yahay sidoo kale visually veiled test hadii noqon lahayd contrast and peripheral hadii noqon lahayd central and peripheral visual field hada qofka test u sameey kartid sidoo kale aspirate oo macular degeneration iska macular problems ka fracture haduu jiro problem culus haduu jiro clinical testing loo sameeyo sidoo kale color vision test color visual test colorada kala arki kartaa so because inta badan wuxuu qofka ka caawina daawooyinka waxyaabay uu isticmaalay wixii ba kala arki kara kalaradooda waxyaabay ku kala qorayihiin xarufta waxyaabay kalarada isticmaalay ku jiro marka waxyaaba loo baahan yahay ku jirta color testiga waxyaaba aad muhiim ku jirta sidoo kale glare sensitivity test ina u sameeyo qofka waxyaabaha glare halos oo qofka dareema oo waxyaabaha hareerihiisa aragga ka hortagtaayo waxyaabaha qofka dareema ina
qofka ka caawisa laga rabo. sidoo kale functional testiga functional assessmentiga qofka noloshiisa caadiga functionalka hore kaga soo hadal functional problemska qofka kala kulmaayo hore kaga soo hadal hadday noqon lahayd readingka oo words barbaridka waxyaabahaas ina qofka assessment uu sameeyay loo baahay ka baartid sidoo kale provided inuu sameeyay retinal locus oo ah assessmentiga inta badan retinal problems kala xiriira ay qofka loo sameeyo sidoo kale light assessmentiga inuu sameeyay lighting assessment hadii loo helo glare sensitivity light hadii loo helo contact sensitivity light assessment waxaas ay loo sameeyay kartaa oo functional problems inta badan ay ka qayb qaadanaysaa wada kaga baad cilaa haduu ilaa raad wixii su'aalo dhanka comment. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.